وحواي مالين بواسي سيدا دوكتين ماشان وحان كتقني لور بلود كهر oo aan uga tagnay amar iyo xushmad iyo kala dambeyn iyo xishood aan ka xishoohayno ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble annagoo og in madaxweynihii hore ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu baxayn waqtigaaga waa dhamaaday oo isagu baxayn meesha ka bax oo isagu baxayn dalkan iyo dadkan qalqal ha gelin annagoo og ayaan haddana waxaan go'aansannay in aan uga dambayno ra'iisul wasaaraha ilaa uu asagu gacanta ka taago waxaa waaye muddo ma dheer kule aakhira ku tahay maanta waxaan u nimid in aanaan dhaqasho dambe laabo inaanaan meesha aan joogno inaan hor uga soconno maana aanaan dib uga laabo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu laga dalbaday in aan gacanta ka soo qabanno waana ka soo qabanayna waxaa kaloo codsaha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wax dambe oo uu saaka ka sugaa waa wuxuu is arkay dalkan iyo dadkan wax ka halaaba ma jiraan caqabad waxaa ugu filan inta waqtigiisu dhamaaday ee ku jiray oo aan ganacsi jirin oo aan hore gadaal loo socon oo qarax iyo shabaab iyo wax soo kordho dhibaato ma ahan wax natiijo u sagaan Allah hadduu qadaro waxaan ka codsanaynaa madaxweyne ra'iisul wasaaraha in uu muddo dambe iyo maalin dambe noo soo qaban oo uu naga hor wareego oo uusan na gaarsiin in aan mataqaanaa ay sheeg aan anagu kala dhiman waxaa waaye maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan noo sheegay senator muuse suudi yalxu ilaahay khayr ha siiyo waxaa waaye soobax ku soo bixi maa sida uu noo sheegay soobax ku soo bixi maa gacanta waa in laga soo qabto waana ka soo qabanayna waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha beesha caalamkan aan u sheegaynaa wax eeda inaanan ku lahayn annagu waxaa waaye dalkan haddii wax dubayaan ama wax burburayaan waa waxaan kilomitir dhamayn waa inta uu asagu ku jiro waa inta uu saaka asagu ka bixi la'yahay annagaana ka saarin haddii alla ogolaado waxaa waaye lama rabo intaas ka badan in laisku xadgudbo dadka waxaan ka codsanaynaa bulshada Soomaaliyeedna in ay garab siiyaan oo qof walba wixii ay awoodo dalkan inaan doorasho gaarsiino xoraan rabnaa ay nala gaarsiiyaan wabillahi tawfiiq meesha aan ku qabo qof aqoon ma jirto waxaa waaye kaamirooyina ku shidan waa sayid waxaa waaye dhagaxi waa kaasaha waa u jeed qofkaan araggiisu macnaha uu xoogaa liito ama aqoonteeda ku liidayso kaas xaq u sug qofku ama araggeedu liito ama aqoonteeda liidayso dhagaxi sayid waa taaganahay waxaa waaye saakid xaggan uma bixi karin barna ma aadi karin koonfurna ma aadi karin meesha aan joognaa hore ka aadna maana gadaal ka aadi mayno ballana horna ilaahay inagu qaadnay dadka ummadda Soomaaliyeedna waa ka qaadnay caawana laaban mayno asaana keenay horay meesha noo keenay dibna waxaa noogu celsay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble saakana waxaa waa garabkiisa taagan lahay waxaan ka codsanaynaa inuusan saaka meeshaas naga celin inuusan nagula kala dhiman beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa waaye asoo sharaf la tigdi laakiin asoo sharaf daran ayuu ka tegayaa meesha uu joogo wabillahi tawfiiq